Qabalaha dan la helay oo hoostaga degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ayaa xalay saqdi dhexe dabley hubeysan waxa ay ku dileen 5 qof oo shacab ah. Dadka deegaanka Caleen oo xiriiro kala duwan la sameynay ayaa inoo sheegay in kooxda dilka geysatay ay ka soo tallaabeen xuduudka Soomaaliya gaar ahaan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Allah ha u naxariistay 5 qof ee weerarka lagu dilay ayaa sida la sheegay waxa ay ka soo jeedeen hal qoys magacyadooda ayaana la kala oran jiray Ismaaciil Shaaciye, Maxamed Cismaan Shaaciye, Gaani Maxamed, Xukun iyo Xasan Cabdi Macalin. Maamulka degmada Shilaabo iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga gaarka ee Liyu Booliska ayaa gaaray goobta dilku ka dhacay waxa ayna laamaha ammaanku sheegeen inay ku raad joogaan kooxdii falka geysatay. Dilka xalay ka dhacay deegaanka dan la helay ayaa ku saleysan aynooyin qabiil oo waayadanba soo jiitamaysay iyadoo waxgaradka iyo beelaha wadadega degmada Shilaabo uu wada hadal uga socdo magaaladaasi ayayna ku soo aadaysaa dhacdada xalay ka dhacday qabaleega dan la helay ee degmada Shilaabo.